عهد النبي عليه الصلاة والسلام مركو نبي مدينة المنورة ويمدي لبا عمل بنبي مركب مدينة كدقاجيي بنى المسجد مساجد بنبي مركب ودسو امده على مديي عمل كلباد نبي مدينة مركو يمدي قبتنا وحا كميده هيد آخى بين المهاجرين والأنصار أنصار يا مهاجرين بنبي ولا لا وكدغاي محونا كو ولا ليي على أساس الإيمان إيمان بو كو ولا ليي أخوة وحو نبي أساس وكدغاي إسلام نمدا أيو نبي أخوة أساس وكدغاي إيمانك أيو نبي ماركتاني أساس وكدغاي أخوة إسلامك مساجد كامركاس وحو نقدا ماشا أمد النبي كو تربيدايو دي دين لا براينا قفك مسجدك لوgu barayay hadii wufuud nabigu uu qaabilayna masjidku ku qaabilayay haduu nabigu ciidamo uu darayna masjidku ka daraayay haduu maaragtaan jamaacada diinta ilaahay fidinaya uu darayna masjidku ka daraayay hadii nabigu alayhi salaatu wassalaam hadii ummadda uu la tashanayna masjidka dhexdeedu nabigu kula tashanayay salaada ishaa ibn nabigu ka baxay uu istaagay wuxuu yiri salaada ilaahay baan nasiyo nagu farad yeelay laakiin sidaan ummadda salaada aan ugu yeedhi lahayn baa laynaga rabaa ka tala bixiya buu rasuulku yiri danta ummadda oo dhan nabigu masjid buu ka bilaabay sideen ummadda salaada xageega aan ugu yeedhnaa waa talo waa tashi waa ilaahay ka ummadda way fahmi laadahay war diinta tashi bay u baahan tahay diintan dhageysi kaliya uma baahno diintan waxay u baahan tahay caaqilka iyo caalimka ka yar iyo ka weyn faqiir iyo qani madaxdeeni mijiheen intoon masaajida ku kulanno salaad waan ku kulanna alxamdulillah laakiin waxa la rabaa inaan ku kulanno diinta tashigeega inaan ku kulanno sidaan ummadda salaada xageega ugu yeedhnaa salaada nabiga isaga loo soo dhiibay halka ahkaamta kale oo dhan nabiga arlada isagoo jooga loogu soo dhiibay jibriil alayhi salaam soonka markii ummadda lagu farad yeelay jibriil baa loo soo dhiibay zakada markii ummadda lagu farad yeelay jibriil baa loogu soo dhiibay xajka markii ummadda lagu farad yeelay jibriil baa loogu soo dhiibay al-ibaadaat anwaa al-ibaadaat oo dhan markii nabiga iyo ummaddiisa lagu farad yeelayay jibriil baa nabiga lagu soo dhiibo arlada ugu keenayay laakiin salaada markay noqotay salaada nabi maxamed baa intuu arlada laga qaaday oo la dheelmiyay oo haddana mi'raaj loo bilaabay laylatul isra wal mi'raaj ayuu nabigu ilaahay la soo munaajooday بدنا شنتا صلاه بالنبي الله صدي بشنتا صلاه لكن هبكي امه صلاه لوغو يرايي نبي محمد عليه الصلاه والسلام يا امتي سال لو دافينا كفكرتي كتشط marka ninba nin saxaabi ayaa yiri markaas ani waxa ila qoman buri nabi allah inaan bir xadiid aan ku dhifano markaas qowda markii la maqlo dadku way maqlayaan dhawaaqa marka birta la dhacayo dadna masjidka imanayaan marka abu nabi guri taan nasaarada ayaa isticmaasho waa jarsi weeyaan ee tala kala keenay abu nabi guri alayhi salaatu wassalaam nin kala yiri anigana waxa ila quman inaan dab shidno oo dabka marka la arkay qiiqiisi holo ciisa ayaa muslimiintu garanayaan salaadii waqtigeedii inuu gaaray dadna salaada imanayaan taana qolada caadiga dabka caabuda isticmaasho tala keenay abu nabi guri alayhi salaatu wassalaam dadna marka hadana nin kala yiri anigana waxa ila tahay booqi la afuufa foorin taana yahuuda isticmaasho waa caadada yahuude tu kala keenay buu nabigu alayhi salaatu wassalaam suuradii habeenkii markay muddo dheer ay socotay buu nabigu yiri arrinkaas caawa hay nagu bariya subaxda hay noo haata buu rasuulku yiri sidaan ummadda masaajidka ugu soo xidhnaa sidaan ummadda aan salaada ugu soo xidhnaa siday ummadan ilaahay ugu xidhantaa ayuu nabigeenu alayhi salaatu wassalaam saxaabadiisa kala tashanayaan salaada awqaadeeda iyo kayfiyadeeda iyo inta rakacadood ay tahay iyo hay'adda salaada iyo awqaada la tukan kullaha waa wahyi weeyaan waa cibaado weeyaan nabiga waa loo waxyooday laakiin kayfiyadii ummaddu salaada loogu yeeri lahaa waxa loo dhaafay nabiga iyo ummaddiisu inay ka tashato halka maxaad ka fahmaysaa sidii masaajida shaqada loo dhisay kama tahay shuruud in dadka muslimiintu danta ummadda talada ummadda maxaa ummadda u dana diintooda maxaa u dana adduunyadooda maxaa u dana noloshooda khaaska maxaa u dana noloshooda caamka maxaa u dana inay ummaddu ariga masaajida dhexdeeda ay kaga tashato waa sharci ilaahay noo soo dejiyay weeyaan waa sunna nabawiyya laakiin mahjuuro maanta laga hijroodo ummaddu ka indiraastay weeyaan salaadii subax markii laga baxay buu nabigu ayaa xalay toola arkay buu riyo suuradii baa socota taladii baa socota tashigii diinta socda
nin saxaabada ka mid ahaayo weliba ragga busodada ka mid ahaa ayaa yidhi xalaytoola anoo dhinacna kasii lulanaya dhinacna ka soo jeeda ayaan maqlay buu yidhi dhawaaq dhegtayda lagu dhawaaqaayo erayadiina waan xasuusanahay nebi allow markaa buu nebigu erayadii ma xasuusan tahay haa bal erayadii xalay dhegtaada lagugu dhawaaqeed maqlaysid noo sheeg markaasuu sii daayey ninkii aadaankii buu sii daayey allahu akbar allahu akbar markaasuu yidhi cumar bnu khadaab aniguna manaamka xalay waan arkay 6 nin oo saxaabadii ka mid a ay isku mid bay yidhahdeen annaguna xalay riyada waan ku riyoonnay markaa buu nebigu yidhi adinkeenni waa kaase laakiin aadaankaa bilaal bara buu rasuulku ka yidhi